أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبني سلام يا دمان والعيال من البوتشوكتين وحن لا وقت وهذين وأنا هذا أنت كبعدي وحن جعل ما أنت إنني لو ذا خبرة دردوفك مركعات هيستو أما تاي والد هيستا المطبة هي جارك إدلي سفريسيد waxaan jeclahay in aan nila wadaago waxyaabaha aan kala kulmay iyo maraaxisha la maro marka aad ilmaha u diyaarinayso inuu safro. dhawaan waxaan ka soo noqonay safar dalka Masar ah. safarkaasi alxamdulillah guud ahaan waa safar si fiican u dhacay marka laga yimaado waxyaabo yar yar ama incidents yar oo aan la kulanay. laakiin intii si badneed waxaan oran karaa wuxuu u dhacay si smooth oo wanaagsan ayuu gabadheeda ugu dhacay dhamaantayo. san ognahay safarku uu adag yahay. nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu ku sheegay inuu safarku yahay qadcatun min an-naar, qayb kamid ah naarta. culayskiisa iyo dhibaatada laga maro qof walba uu taabtaa dhibtiisu. caruurta baahiyaha gaarka qaba sida autism waxa dhiba buuqa iyo meelaha buuqa iyo guuxa waxa soo dhan way dhibaan. haddaba ilmahaasi waxa loo baahan yahay in loo diyaariyo arimahaasi ka horeeya marka uu tago airportka ilaa marka uu diyaaradda fuulo iyo waxa diyaaradda gudaheeda ka dhacaya iyo wax walba. ilmahaasi inuu si ogaado ayaa muhiim ah. ilmahana intuu yar yahay baa fiican in loo diyaariyo ama la baro inuu safro, waayo way ku adkaanaysaa haddii isaga oo weyn safar la yiraahdo. laakiin markuu yar yahay wuu la qabsanayaa wax walba. waxa fiican ilmuhu intuu yar yahay in lagu tababaro. markuu yar yahay iyo markuu weynaado way kala duwan tahay. markuu yar yahay waxa badan aad ku tababarto way anfacaysaa, markuu weyn yahayna sidoo kale waa tababaraysaa. laakiin waxa ka fiican ilmaha intuu yar yahay in wax badan la tababaro. aan waxaan bilaabay inaan teeda dhoofno waxay ahayd markay ahayd 4 sanadood ilaa intii 4 sano ilaa iminka inta ugu badan waan dhoofaynay. marka way la qabsatay baan oran karaa. laakiin iyadoo la qabsatay haddana way ku adag tahay, way ku adkayd. waxa jira incident yar oo aan oran karo iska minor bay ahayd marka loo eego bilowgii markaan dhoofaynay ay yarayd ee 4 jirka ahayd oo runtii ahayd marxalad aad iyo aad u adag oo yacni qof walba waalidis oranayo this time haddaad dhoofteen mar dambe ha dhoofina because culayska iyo dhibta naga soo wajahay. markay yarayd 3 sano 4 jirkeygii 5 jirkeygii 6 jirkeedii waxay ahayd aad bay u adkeyd dhoofisto. yacni sanadadaas isku daba xigay waa dhoofaynay ilaa waxaan oran karaa 8 jirkeygii ilaa 9 jirkeygii si yacni sanad walba waa dhoofaynay. labadii 3 sano ugu horeeyay waxaan oran karaa waxay ahayd nightmare. wax kale kuma tilmaami karo, nightmare bay ahayd. xoog bay ugu adkeyd inateer yacni dee waxay noqonaysay overwhelm, sensory overload badan bay helaysay. waxa dhibayay wax kasta ayaa dhibayay. marka min aeroportka markaan soo galo ilaa iyo inta aan diyaaradda ka digayno marxalad adag bay ahayd. laakiin sanadba sanadka ku xiga waxaan arkayay isbedel, yacni inay la soo qabsanayso. sanad walba inay baxdo aniga ayaa rabay, sababta waxa rabay inay la qabsato ayna hadhowto wax dhiba kala kulmin. sanadba sanadku ku xigo way la soo qabsanaysay. waxaan gaarnay marxalad iyadu ay jeceshahay inay dhoofto oo ay tiraahdo waxaan rabnaa inaan baxno inaan dhoofno. ay ii sheegto communication methodka ay isticmaasho sida communication cardka, visual cardka ay u tusto, inay videoyada ay soo saarto ay tusto let's go for a holiday. marka inaan usii shooga oo iraahdo xilligaasaan baxayna. alxamdulillah rabbil caalamiin. waalid walba waxaan malaynayaa inuu marxaladaha noocaas maro, laakiin waxa lagaaga baahan yahay preparationka ugu horeeya ama isku diyaarinta ugu horeysay waxa weyn inaad ilmahaaga u sii sheegtid inuu safrayo. si walba ilmuhu hadduu hadal inaad ugu sheegto iyo visual cards adoo u raacinayo oo tusaya marxaladaha aan marayo. sidoo kalena non-verbalka haddii aad visual card oo isticmaalo kaarasha ama isticmaalo sign intaba inaad ku sheegi karto ugu sharxi karto kana dhaadhicin karto inuu xilligaa la baxayo dhoofkana laga sugayo inuu waxyaabaha noocaas sameeyo. yani ilmihii sawir baad ku tusaysaa. anoo kale waxaan isticmaalaa sawirada saan si fiican inateedu ku sharxo wax walba. sawirka markuu airportka tago inuu galayo yani airportka markay tagto baan ka wadaa
كيو إني قاليسو إن الماش مرينو ما عرفتي checking كا إن حدوتو ولا ماشى waiting area جبتو لسوقي إن كدبنا ديارة دلفولة ديارة دنا لجربه إن وحياة سميسة سيد بالك حرطو سلايس وحياة لجربه أردن أو visualize يعني ما عرفتي تصاب مركوي فهميسها ماشي مكان تجنو الحمد لله رب العالمين واحد جيران ايربوردا inta ugu badan wadankan special assistant facilities wax la yiraahdo oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba yani uma baahnid inaad leenka dheer aad gashay dadku galaan balse waxa jirta meesha dadka baahiyaha gaarka loogu talagalay inaad geli kartid taasan markaa ma aragtay markaad airportka tagto dadka meesha ka shaqeeya ayaad la hadlaysaa ama sign baa jira meel ay ku qoran tahay halkaas aad tegaysaa aadna way ku caawinaysaa boardingka marka la sameeyo sidoo kalena waxa loo horeysay dadka baahiyaha gaarka qaba iyo carruurta yaryar kadib dadka kala galaan soo waa inaad la socotid waxa soo dhan because kuyuga carruurtan ma qaadi karaan buuqa meesha markay buuq tahay guux badan ka baxayo dad badan hadlay waxa soo dhaweey dhibaysa maxaad sii siinaysaa markaad u sharaxday in ilmaha soo dhoofay waxaad sii siinaysaa u sii diyaarinaysaa inaad siiso iPad-kiisa u sii jaajo headphone-ka iyo iPad-ka oo programyada uu ilmuhu daawado ayaad maaragtay ama daawato ayaad ugu shubaysaa kadibna headphone-kiisa ayaad markaa maaragtay أو حرنا يعمل كتير ماشى اللي بكا noise cancelling أما واحد بدأ كداعية أو نوقف أو نمقلينين وكله كاسو كلام معرفتي وحرسة حكى عاونا سائل إنه مقلين بوق أيوة قيل ده حق جرب معرفتي إيرباركا توي أو جعليها ilmuhu favorite-kiisa aad u raacinaysaa waxaad sidoo kale raacinaysaa snaaga waxyaabaha snaaga u jeceliya cuntada u jeceliya inuu cunaba u sii qaadaysaa waxaasoo dhan waxay ka caawinaysaa inaa inta la sugayo airportka ama waiting time-ka ama diyaaradda dhexdeedaba ilmuhu uu ku maaragtay kumisi isticmaalo si uga caawiso in maaragtay noqdo very overwhelmed ama inuu distress noqdo ama diiqadooda waxaas ka yaraanaysaa airportada qaar waxaa jira meelo lagu ciyaaro oo caruur ku ciyaaraan in markuu aad u yar yahay waliba ka caawinaya airportada qaarna male laakiin aad waxyaabihi ilmaha ku jeedinaysay waa inaad mar walba u sii qaatid insha Allahna ilaahayna adoo tala saaranayo quraankaagi adkaartaada iska sii akhrisanaya wax walbana waa ku fududaanaya laakiin waxaan sheegayaa bilowga sanadada ugu horeysa ilmuhu dhoofayo inay adag tahay the first 2 years ilaa 3 sano ugu horeysa laakiin ilmuhu la qabsanay because caruurtan maskaxdoodu waxay mar aragto way ku dhigtaa wayna la qabsataa sidoo kale markaad meesha tagaysiin aad tagtid oo kale waxaad u qaadaysaa waxyaabaha tooyaasha uu jecel yahay markuu seexanaya uu qaato cushions ama maaragtay maqadid uu ilmuhu jecel yahay mar walba favorite-kiisa wax kasto favorite-kiisa ilmaha mar walba isticmaalo you have to take it with you waa inaad qaadatid ilmahan meel walba u tagayo waa inuu si gurigiisa oo kale aw dareemo inuu joogo environment-iga as much as possible inaad uga dhigto environment-i gurigiisa oo kale lamida inaad isku taxalajiso laakiin ilmo inuu barto inuu baxo inuu dhoofo inuu dadka dhaxkala bulshada dhaxkala aad bay muhiim u tahay waliba min yaraanta hadii aad ilmaha ku barbaariso wax badan baad save karaynaysaa caruuraha guryaha lagu hayo ee la yiraahdo ilmaha markaan u baxo way dhibaya ama ilmahan dadku dhibaya ama waa sidan waan uga baqayaa inuu baxo may ilmuhu sidoo wax ku baran hada guriga ku haysid ilmuhu sidoo wax ku baran adduunka sidoo u dhaxgalay ilaa weynaanaya ilmaha wiliga ma yaraanayo u weynaanaya hada ilmaha guriga ku haysa hadhow markuu weynaado dib ay ku noqonaysaa inuu bulshada dhaxgalo inuu dibadda u baxo dib bay ku noqonaysaa soo waalidka waxa kula talinayaa inay min yaraanta ilmaha baraan inuu bulshada dhaxgalo inuu maaragtay interaction la sameeyo bulshada inuu dhoofo inuu different activities caruuraha kale la sameeyo community-ga inuu baararka baagyada markasta tigo waxaasoo dhan waxay ka caawinaysaa ilmahan inuu maaragtay la qabsado dibadda inuu adeeg sameeyo inuu maaragtay isla soo adeegtiin kale jeclay inaan la qabsado waxa weyn incidents yar oo anaga midna la kulanay waxa kamid ah caruurta marka jadwal maskaxdooda ay ku hayaan ama ay ku hayaan like the visual card-kii aad tustay meeshii la maray security-ga wixii oo dhan aad u sharaxday marka qaar kood sidii wax u socday waxba iska bedela ilmahana
caruurahan inta badan waxa isbedelaya iyagu ma qaadi karaan because maskaxdooda waxbay la qabsatay waxaa soo rabaa inuu maaragtay ilmahani awdi sidii loogu talagalay wax walba u socdaan soo waxa dhacay markaan security-ga mareynay waxa jira airport inta badan London baan ka dhoofi jirnay kabaha waa la iska saaraa soo markaan meesha security-ga mareynay gabadheeda kabaha iska saartay soo qofkii security-ga meesha joogay ayaa wuxuu yiri no kabaha iska xidhno waa saarin markaasay tirmay waa saaraya wuxuu yiri ma saarin intii bay markaa maaragtay ay ka diiqadootay kabii markay xidhatay meeshii security-gi maraysay ee la rabay in la baaro way diiday in la baaro because already way diiqadaysantay overwhelmed bay ku noqotay because waxay rabtay kabeega in meesha la saaro ninka waxaan ka yidhi kaniyo inaad u ogolaatay inay kabaa saartay laakiin some people ma fahmi karaan ama ma jecel inuu qofku ku yara adkayo iska yara doonay so marka meeshii security-ga ay soo gaadhayna hablihii rabay inay baaraan way diiday so waxay noqotay very distress bay noqotay way diiqadootay and then waxaan ka yidhi hataabanina waa very distress ma rabo inay aada u diiqadooto hataabanina suga intay maaragtay ay caadi noqonayso waxay rabeen inay qasab yani ay ku taabtaan oo saas wax ka yimay waan diiday waxaan ka yiri waqtigeeda ha qaadato luckily waqti badan baan haysanay diyaaradda laakiin haddii diyaaraddu short time ahaan lahayd wax kasta waxay noqon lahayd jaqbis ku noqon lahayd adkaan lahayd so way sugeen qolbayna geeyeen ilaa intay caadi noqonaysay ay maaragtay ay iyadu iskeedu ogolaanaysay dadkan waxay jecel inay iskood iyagu wixii ay ka soo go'do waxba kuma qasbi karsid wax hadday diidaan no waa no والله no bay ka dhigan tahay marka waa in la sugo soo waqtigeeda qaadatay xaqeed waqtigeena qaadanayna waan sugnay kadib markay caadi noqotiyada ogolaatay la baaro wala baaray dan waan iska soo baxnay laakiin they could inay iska sii daayaan anyways laakiin sayni sheegay eraboorada dadka jooga isku mid maaha dad baa jecel inay wax kugu yara adkeeyaan ku adkeyn bay ka ahayd aan soo arka laakiin because waxaan arki jiray erabooro badan oo marna xtaraba baari jirin markay sometimes xulin jireen iska marto hadii diido laakiin this time she must by dhahan marka alxamdulillah adi markii dambe waa la baaray waana soo dhaafnay sidii baan ku galay meeshii boardingkii diyaaradda meeshii laga fulay waxaan waalid walba kula talinayaa airportka inaad tigto waqti kugu filan anaga 4 saacadood ka hor baan baxnay 4 saacadood ilaa 3 saacadood ka hor ugu yaraan 3 saacadood ka hor waa inaad sii baxdid airportka aad tigtid waayo ma garan kartid waxa ka horeeya ilmahan hadduu distress noqdo waa inuu waqti helo أو عادي كنا قنوا السوق استجينا يو حدي لعلا أو نقضي قضاضو مركا وإنا وقت جاسيسي المهم وأنه مركز توقتي هلا مركا أنا بورك enough time إنا تي تكتين أد بهم متهاي incident كلا أنا كنا عنا وح أهيد مركا سوي سعني أيا مركي بورد كلا سميني ماشي جيت كلا جلي أيا وحي سمين announcement إن لا صا قلا صفك أنا جوري صفكي بان قلي صفكي مركا قلي dadkii meesha ka shaqeynay baa dhahay cidba ma iman adoona waxay announcement-iga u sameeyeen ma fahmin cidba ma imanin waxay raadin dib u noqda waa inaad dib u noqotiin wali waqti baa dhiman marka iyadu she was expecting inaan gallo tooso gallo so markaan dib u soo noqonay xogaa weeradii qadootay laakiin alxamdulillah rabbil alamin and the good thing is iyadu markay diiqadooto you can reaction-ka face-keedu mad ka dareemaysaa inay diiqadaysan tahay laakiin even taas I don't like it inay maaragtay wax jecel wax walba inay smooth noqdaan laakiin hadana dema aduma sameeysan wax walba rule bay meesha ku socdaan so you have to sidii aad u dejin lahayd mar walba inaad maaragtay aad u falinkeeda qabato hadii ay diiqatimaado weeyaan aad aragtay inay ilmahani aad diiqadoonayo marka waxyaabaha aan inta badan caawiyaan u qaado waxa kamid ah bati therapy wax la yiraahdo oo squishy oo gacmaha saas ay inta badan ku jeceshahay inay markay stress yara dareentaba ay isticmaasho isku dejisaa and sometimes chewing necklace wax la dhaho caruurta qaar baa waxay jecel yihiin inay non food item ka caag oo kale ama something aday ra stress dareemaan afka geliyaan u qaniinaan so chewing necklace wax la yiraahdo ayaa markaan dareemay seeking that waxaan siyan chewing necklace ka kaasay markaa isaguna stress ku yareeya marka laakiin overall it was a good experience alhamdulillah all the way hatta markaan tagnay meeshan taginay everything it was okay and apart from like hawadu yara adkaydo caloosha xogaa ay calool xanuun ay dareentay cuntada meesha biyaha I think and laakiin inta kalena normally caruurtan waxay diiqadoodaan markay xanuunsan ama wax dareemayaan bay diiqadoonaan laakiin hadii caadi yihiin wax walba okay tahay ma diiqadoodaan
marka soo soconay waxaan anu oran kara because she was not feeling well maalmihii ugu dambeeyay. So that's why waxay u dhibsatay markaan meesha gelaynay ee la yiri dib u noqda. laakiin normally markay everything is okay hadayna bukin wax walba okay u yihiin waxaas xataa waxba uma aragto inta badan. laakiin waa marka ama isdaal badan dareemayso in badan meesha la joogo ay iska yarada qof walba uu daal of course inuu soo sheegay safarku aad buu xun yahay markaas oo kale wax dareemaysa inay diiqad qofku uu dareemo qof walba diiqadoonay. laakiin these children they want express iyagu waxay jecel yihiin diiqada way ku tusayaan wajiga ku tusayaan inay diiqadaysan yihiin way ku tusayaan ama way ku sheegayaan ma garanaysa inay rabin marka waxay sameeyaan behavior like lugaha oo kale inay wax badan dhaqaajiyaan ama inay san sheegay gacmaha waxoogaa ay maaragtay marka waalidkood waxa soo dhan la socdo insha Allah intaasaan ku soo koobaya videoga ku dheeraaday musaawisi dheeraaday ma rabin laakiin waxaan jeclaaday inaan nila wadaago waxyaabaha andoofka aan maaragtay aan kala kulan ee waalid kasta maaragtay oo la kulmi karo laakiin san soo sheegay dib in soo celin soo koobaya marka ugu horeysa ilma uu si diyaari ka hor weeks bilo oo si sheeg xilligaas aan baxayno dhoofayna diyaaradan raacayna wixii pictureski oo dhan siitus u si sharax kadibna maalmaha soo dhaway sidoo kale waa ku sii celinaysa. obviously ilmuhu markuu arko shandadii wixii la baagareynay xataa uu garanaya shandadiisa wixii early u sii baagare soo ku sii talagalaya visual cards ka iyo waxyaabaha ka dhacay mar walba hayso hada communication ka ilmuhu hadleen hatta haduu hadlayo mar walba visual waa ina wax ku tustiin aan nateedar yaraan baan ku bilaabay soo ilaa imku waxay jeceshay visual wax kasta inuu visualize noqdo iyadoo fahmaysa wax kasta caadi u sameynaysa laakiin hadana visualize wuxuu markuu yahay ama kaarish waxa lagu la xiriiro way ka sii jeceshahay. sidoo kale ilmaha tooyaasha waxyaabo jecel yahay sida iPad-ka inaad ugu shubto buuranamadu uu isticmaalo headphone-ka waa very important earplugs hataa oo maaragtay dhigisiina u xanuunin dhigaha ilmaha markuu diyaaradu maaragtay ay kacayso ama ay fadhiisanayso dhigaha waad aragtiin xanuun buu keenaa. sidoo kalena inaad waxyaabaha tooyaasha soo sheegay inay haystaan iyo snaaga ay jecel yihiin ama cuntada ay jecel yihiin favorite-kooga ah dhar comfortable ana u soo xira oo duujoog ku leeyahay dhar comfortable joog sidoo yahay mar walba dhar naasibaya markasta inay xirnaadaan iyo kaba munaasibo oo naasibaya sidoo kale because waxa rabnaa caruurta inaan ka ilaalino wax diiqada as much as possible. doofku waa diiqad laakiin waxa rabnaa sida uu yaani ugu fudud oo smooth u noqon karaan markasta rabnaa inaan ka shaqeynayso waalid adaa garanay ilmahaaga markasta waxyaabaha uu ka diiqadooday waxyaabaha uu ka diiqadoon waxyaabaha dhibi kara doofka waxyaabaha caruurta dhibay kamid tahay laakiin aad sideed u handal gareynaysid waxyaabaha oo ilmahan u baahan yahay in laga sii baarandego waxyaabaha ni soo sheegay muhiimna weeyaan markasta la dhoofayo ilmahana bulshada u saara doofka haduu sanadkan ku adkaaday oo next year ma baxayo because ma rabo wixii aan maray inaan maro ilmahan bulshadu la qabsanaya adduunka ayuu la qabsanaya ilma guriga joogo meel batigina ka dhigina adduunka soo arko ilmahan ilma adduunka soo arka ha noqdo oo bulshada dhax gala ha noqdo. intaasaan ku soo koobay adbaanay salaamada waqtigeena samaado. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.